asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawaada asxaabteeda quruxda badan meel walba adduunka dacaladiisa aad ka joogtaa. waa mariiko kan channel bli sidaa ku cusubtaa subscribe noo saar, like iyo commentigan nala wadaag. maanta maxaa noo wadaa? maasha allah, cuntadan ayaa noo wadaa. maanta waxaa noo wadaa canjeero maasha allah, waa loo xiisayaa. waxaa ku dhahay ramadaankani in lagu afuro iskaga fiican tahay. maasha allah, aada u jecelnaa anaka canjeero soomaali. maasha allah, yaab heli karabo waxaaga. marka haddaa ka hesho videoga like nala wadaag, commentiga sidoo kale tood please hadaa ku cusub tahay marka ugu horeysa aad soo booqatay uu yahayna youtube-ka, hoos u gal, waxyaabo badan oo aad ka faa'iido waa ka heli doontaa channelkayga. subscribe-tana nala wadaag, asxaabteena ka mid noqon, nagu soo biiri. waa ku jecelnahnay qof walbo youtube-keena ku xiran, waa jeclahay, qalbiga idinka soo salaamay. maasha allah, soo dhawaada. channelku waa channelkeena mar waliba. maanta canjeero soomaaliya noo wadaa. canjeerada maasha allah waa canjeero nafaqeysan. waxyaabihii aan ka sameyn waa idinla wadaagi doonaa. maraqa muhiim ma ahan, qof walbaa sameysan karto. waxyaabihii aan maraqa ka sameyn insha allah waa idinla wadaagi doonaa. meeshaan waxaan ku haystaa koob biyo ah. waxaan kaleetoodan ku haystaa sokor yar. sokorta muhiim ma ahan laakiin mar walba waxay kuu siinaysaa wax yaroo gaduud quruxay kaaga dhigaysaa. burkii waa idin tusaayay, waa leebitadii iyo 3 xabo ukun ah, cusbo iyo ganleeda jaalaha ah. هذا قليده هيستد markaas isticmaali kartaa. laakiin maanta waxaan idin wadaa canjeer ganley lagu daraa. canjeerada ganleyda marka lagu daro wax yar way adkaataa oo jilaac ah. haddana maasha allah se u jilicsantaa ku dheh, maasha allah ma laga sheekeyn karin. marka dartaan waxaan isku qasanayaa leebitadeedii iyo biyaheedii. yaa rabaa inaan isdhex galiyo. leebitada ma ahaan leebitada caadiga ah oo qalalan ma ahan, waa tan qoyan. marka insha allahu tacaala waxaan ku darsan doonaa wax yar oo biyo ah. leebtaan soo dhex gelin doonaa hadduu allah uu dir karaal noqdo. maasha allah, waxaa ku dheh ma laga sheekeyn karo. saasa kusoo wadayaa. wakana waa soo dhex geliyey. hadeertaan wax yar u dhiman, inta yarna waa dhammaystiray. kabacdina waxaan rabaa inaan ku darsado cusbadeennii, sokorteennii, ukunteennii, si waxyaabaha sita haddana isii dhex geliyo hadduu ilaahay karaal noqdo. ukunta haddaad doontid, ukunta horta kale faa'iidooyinkeeda inta kuma soo koobi karo. faa'iidooyin badan ay leedahay. ciyaalka way u fiican tahay maadaama ciyaalkani canjeerada maasha allah wiilkayga aada u jecel yahay. canjeerada weliba marka kuma jecla canjeero shaah isliid. maasha allah aada u jecel yahay. ilaahanoo dhaafo ubadka, ama qurbaha joogaan ama wadankiyaa joogaan. qof walba wadanka u dhaarto wax u dhaamo ma lahan. hidaheeda iyo dhaqankeeda iyo waxyaabaheeda cuntooyinkeedana wax u dhaamo ma lahan. maasha allah, waxaa ku dheh marka ukunta sasa ugu darsanaya maadaama ay nafaqo leedahay. ciyaalkay u fiican tahay. wiilkayga ukunta caadiga maba cunabo. ukun caadi haddaa u karisid ama u shiil ama biyo ugu kari ma cunayo. laakiin marka canjeero saan oo kale ugu daro maasha allah wuu cunayaa. marka sasa ugu daraya ukunta way fiican tahay. waxyaabo badan ay u fiican tahayna way jiraan. marka maasha allah isku dayna ukunta canjeerada ku darsataan. Soomaaliya markaa joogno ukunta canjeero ma lagu dari jirin, laakiin hadda marka qurbaha la imaaday waxaa la fiirinayaa halaha borotiinkaa soo geli karto iyo waa la xisaabtamayaa. beesale ma laga xisaabtamo meeshaan. cuntada xitaa waa lagu xisaabtama. hadda haaf galney kusoo darsaday, haaf yar waay, wax badan ma ku darin. marka insha allah 2 galaas oo bur ah canjeeradooda rabaa inaan dubo hadduu ilaahay karaal noqdo. galaaskii hadda aan galeyda ku cabiranayay, marka galeyda galaaska haafkiisa lay ku dartay. hadda burkian kusoo darayaa 2 galaas oo bur ah. waa burka noocaan ah. ay bur ah markaas haystada isticmaali kartaa, laakiin ani burkaana jeclaystay inaan canjeerada mar walbana aan ka samaystaa. saas kugu soo walaaqayaa. haddana maxaa u dhiman? wixii muhiimka zaa'id ahaa u dhiman. waxaad dhahaysaa maxaa waxa intaas ka muhiimsan? laakiin wixii muhiimkaa dhiman, wixii muhiimka inaan niila wadaagaa rabaa. waxaa rabaa insha allahu tacaala inaan ku darsado karooto. se ugu daraysaa karooto? karootada waxaa ugu daraa waa soo shiidayaa. kabacdi markaa soo shiidana biyaheedan ku darayaa. sababta ugu daraayana wax kale maaha. karootada kaleeto waa taqaantii waxay u fiican tahay indhaha. waxyaabo badan ay u fiican tahay jiraan. marka fitamiinaad badan ay leedahay maasha allah. marka saas darteeda aan ugu darsanayaa. maadaama anaga dhammaanteen familigeena inta guriga joogto dhan labada yaryar ma ahane okiyaalan wada qaadanaa. okiyaalahana sabab kale uma qaadana, indhaheena daciifa. soo marka jeclaystay xabad karoota soo fiiqday, waa soo dhaqday. haddana waa soo shiidaya insha allah. markaa soo shiidana meesha aan biyo caadi uga dhigi lahay aan karootada biyaheeda uga dhigaya. waad ku darsan kartaa haddaad doontid adiga markaa saas u shiidid macal qolfkeeda macal waxeeda dhan haddaysan ku dhibin ama ubadkaada ama naftaada aysan dhibin. laakiin ani ma jecli.
karootadii sideedii ku dhex jirta canjeerada ma jecel. Waa baroobay laakiin ma ka helin. Soo marka biyaheeda aan doorbiday inaan ku shubo oo sas ugu meerto. Mar walba canjeero aan sameynayo waa jeclahay hadee karootada markaas ii taalo inaan ku darsado. Waayo karootadii sideedii badanaa ma ruugo, cuntada laakiin ku dhex darsadaa. Ay cunto aan markaas sameysanayo wada isdhaaf way ku macdahay. Waa ku baroobaya marka hore ka bacdi markay igu macaatinay. Sideeda ugu sii daraa. Hadda saas ugu daraa markasto. Adinkan waxaan rajeynayaa inaa ku darsatiin ku baroobaysiin dhadhankeedana insha Allah waa ka heli doontiin hadduu Allah ugu dil karaal noqdo. Muhiim zaid ay noo tahay anaka karootada. Waayo fitamiinaadkeedan u baahannahay iyo waxyaabaha laga faa'iido. Marka adinkana baroobeeya waa laga yaabaa inuu idinka dhiman yahay laakiin aadan is ogeynina. Anaka laakiin waa is ognahay alxamdulillah. Marka waa kaas hadartaan maasha Allah si fiican ay noqotay waa dawoolaya hadduu Allah ugu dil karaal noqdo. 20 daqiiqo 25 daqiiqo ilaa 30 daqiiqo ay dawoolaanaysa kadibna waa duwan doonaa hadduu Allah ugu dil karaal noqdo. Hadda waa kana maasha Allah way soo qamiirtay. maasha Allah waxa ku indho qurux ay soo noqotay iyada dhan. Ani qaando ma ku dubaay. Qaando weeno taala iyadoo waliba 3 nooc ah. Caag iyo 2 bir ah qaandooyinka lagu dubo canjeerooyinka laakiin ani kama helo. Waxaan taagnay Soomaaliya ahay. Furka jalaatada ku dubanaa maxaa diiday? Furka jalaatada ku duban weeyaa maasha Allah waa kaasa. Sasa ku soo wadaaya insha Allah ta'ala. Waxaan rajeynayaa inaa baroobisiin adinkane ku darsatiin karooti ukun canjeerada wax badan ka faa'iido doontiin hadduu Allah ugu dil karaal noqdo. 2 xabo canjeeraha 5 xabo canjeero bur kaaga fiican insha Allah. Ganleedana koleeto waa dalagayni dhulkeen hooy way ku taala. Ukun iyo karootina way buuxaanba wadankeeni ama wadanka joog ama qurbaha joog insha Allah ta'ala. Waxaan rajeynayaa inaa ka faa'iidiin hadduu Allah ugu dil karaal noqdo. Sasa ku soo wadaaya aad iyo aad u fududahay. Sas marka uu soo guduudtana waa ka saaraya. Waxa ku dhamaa maasha Allah way jilicsan tahay hadan marqayna suubinsanaha. 2 xabo baradha meeshan ku soo jarjartay kuskuus oo soo jarjartay riis 3 xabo yaanyo iyo xabo toon ah. Intan waxa ay taala karooto aan soo hoolay iyo basal baar iyo basal caadi xabad basal caadi. Intan waa door aan sidii baradhadii oo kale tood soo kuskuus soo jarjaray. Markee waxa u maleysay inay biyo leedahay laakiin waa soo dhaqay waxa ku soo dhaqay qal. Mar walba fiican tahay in wax qal ama bakin sood iskaga dhaqdid. Yaanyada waa soo shiidan doonaa iyo toonta. Haddana waxaan isla imaanay dabkii maasha Allah saliid olive oil aan ku soo darsaday way soo kululaatay maasha Allah basashan ku darsanaya ka bacdina waxaan ku darsan doonaa dooradeeni sasa ku soo wadaaya insha Allah ta'ala dooradii ku daraya markaas uu karsamay kale waa dareemi kartaa waxyaabaha aan isku darsaday bisa muhiim ah intaas aan isku darsanaya aniga waxaas u si badan ma ahan waa wax aad iyo aad u fudud waa wax gurigaaga mar walba ku yaalo. Doorada waa doorada shafka ah oo aan lahayn wax laf ah jiir waaye marka hore midin sheegin iga raal noqda marka 3 xabad maraq digaaga ku daray cusbo dhan ma ku daraayo insha Allah ta'ala ka bacdina sasay ku soo dhantaa marqani yaanyadeeni iyo waxaan ku darsanaa basal baarkeeni iyo karootadeeni hadii dad doontid basal yar korka uga sii daro barbarooni korka uga daro sida jeceshahay adiga iyo dooqaaga hadduu Allah ugu dil karaal noqdo. Filfil yaraan ku daray wax kale kuma daraayo huruudaan ku dareyno barbarooni shiidan aan ku dareyno xawaaji ma waxaas dhan ma ku daray marka insha Allah ta'ala waxaan rajeynayaa idinkan inaa ka faa'iidaan fiidiyoga marabin inuu idinku sii dheeraado waxaan rabaa inaan soo koobo sas darteed orod xitaa waa idinkaga dhigay waayo wixii in la ka faa'iidin waqti badan aysan idinku qaadanin aan rabaa hadduu Allah ugu dil karaal noqdo waa rajeynayaa inaa ka faa'iidin ka faa'iideysatiin karootada iyo ukunta insha Allah ta'ala maasha Allah canjeeradayna maasha Allah quruxna noogu soo baxday wakana marqeen waa noo soo diyaarsamay waa noo soo karsamay maasha Allah canjeeradayni meesha soo saarnay saxan geeskiisa 2 xabo timir ah iyo maxaa la dhahaayay canjeeradaada iyo marqaaga intaas daab isku heshid ka badan maxaaba kale u baahan tahay saxuurtaada ba sugan kartaa sambuus iyo macshari iyo mashmash iyo waxaas oo dhan oo saliid lagu dubo intaana kaaga caafimaad badan caafimaad ahaan laakiin iyagana waa loo baahan yahay waayo waa waxyaabaheeni dalkeena aan ku samaysan jirnay waa sameysana anaga bisraax marka runta ka hadlo laakiin canjeerada iga qabatay maanta waxaan jeclaystay inaan idin la wadaago maadaama aad tihiin asxaabteeda aan jeclahay waxaan rajeynayaa insha Allah ta'ala inaa ka faa'iideen
oo adinkana aad tijaabin doontaan, aad barooben doontaan. Inta videoga video lamida dib uga kulmi doona. Assalaamu calaykum waraxmatullahi